dhacdooyinka la xiriira dilalka iyo dekanooyinka aanooyinka qabiilka ee horey deegaanadan uga dhici jiray ayaa haatan waxa ay dhaleen saameyn ay ku yeesheen dadka birmageydada ah ee deegaanadan muddada colaadu ka taagneyd ku noolaa. Maleeshiyaad hubaysan ayaa fal iskugu jiro kufsi iyo jirdil baahsan u geystay ku dhowaad 7 haweena deegaano u dhexeeya santarka ka xandhaalay ee degmada Galaadi iyo Galinsoor. Maleeshiyaadka falkan geystay oo kasoo jeeda Galinsoor ayaa dhacdadan u geystay haween iskugu jiro shabaab, gabdho aan qaan gaarin iyo kuwa sida ay sheegeen umula. Dr. Zakariya Cabdishakuur Abshir oo xaaladooda caafimaad haweenkan la tacaalayay ayaa sheegay in hablahan dhib xoogan loo geystay. Aniga ku hadlaaya magaca maamulka isbitaalka Shifa Caabudaaq maanta waxaan soo gaaray bukaanno dhowr ah oo dumar ah oo ilaa iyo 5 ah bukaanadaasi waxay qabaan dhibab kala duwan waa 5 dumar ah oo ay ku jiraan waayeelo iyo haddii Ilaahay ku idmaayo iyo caruur gabdho yar yar ah iyo gabdho umulo ah oo 10 bari dhalan gabdhahaasi dhibka ay kala qabaan waxay tahay horta kulli waxay ka siman yihiin kufsi wadareed loo wada geystay dhamaantooda iyo jirdil oo ay aad u kala xanuun badan tahay madaxa jirdil loo garaacay nabaro madax uga yaalo dilaaca jirka meel walba oo ay nabaro uga yaalaan qaarkood korkooda uu jeexni ka muuqdo oo aad moodayso in wax lagu jeexo wax lagu garaacay xaqiiqatan wallaahi dhibku aad buu u kala xanuun badan yahay waxaan ugu daran gabdhaha umulaha ah oo dhibkoodu aad u liito maamooyinka shabaabka ah wax aad ugu darana waxay tahay gabdhaha yaryarka ah oo hadda soo kacaya oo 13 jir iyo 14 jir ay ku jiraan oo loo geystay kufsi aad u xun. Qaar ka mid ah haweenkan oo si loola tacaalo xaaladooda caafimaad loo keenay isbitaalka Shifa ee degmada Caabudaaq ayaa sheegay maleeshiyaadka falkan u geystay ay si arxan darro ah ula dhaqmeen. Caruurta ilaa iyo hadda lama hayo xanuunka aan ka tagay leega axbaarsada ay way diideen ana qaawan bay cadaan ugu kaxeeyeen wax reeydan baa la geeyay soo kufiyo dilaalay kursi baa la gala ciyaalkeena ilaa iyo hadda ma hayo meel waa inuu qaatay ma aqaan meeshii baa layga soo qaaday gabdho badan baa la geeyay gabdho badan 7 gabdhood baan ahay kaas gabdhuhu kuwa umulaa iyo kuwa isnaama waaweyn shabaab ah marka wax naloo dhaafay lama arko. Xerada ciidankayna geeyeen ay noolaha reer marka waana laayeen waana dileen wali waa dileen ilmi waa naga tuuriyeen ruuxu ay waa tuuriyeen al'aanka aan wali qaar baa la goobayaa meel ay ku dhaceen laaban dhibaato ay noolaha reer lama arko gabdho umulaa iyo gabdho xun bisoo lix jiraa iyo habro duqaa shaybab ah way ahaayeen waana la laayay oo waana la qabsaday oo mariyay baan la ka marxiyo oo qaqaawan baan la kaxeeyay xero ciidan baan la geeyay waxna loola haray lama arko mid ugu badan baa 10 bari dhalanay midna 3 bari bay dhalanay kuwaas maxaa loo geystay waa la dilay waana la kaxeeyay waana la qabsaday maxay ahaayeen markii maleeshiyaadkan dadka loo geystay waxay ka yimaadeen magaaladooda ay ka soo kacay meesha ciidamadooda deganaayeen oo nagu dhoway ka soo kacay markii dambe ciidankoodii bay noo geeyeen mana dagaalisiin sagaalada ku qaaday mana dagaalisiin anako cagacado mariyeen xataa la ka dhilqiyeen kursi iyo ulal ku wada nala geeyay 14 sano aniga jiraa hooyaday walaashay ayagana markaas ku jireen ما درس لان هين شمع لان هين وكاس تدرس لان هين اسكول دو تدرس لان هين أفريتون باترا 14 سنة تفهم سوبيس بقى هين قبلها كلام درس بقى درس بان هين درس باتي هيا dhaqanka ay ka soo jeedaan haweenka falkan lagu la kacay ayaa sheegay in falkan yahay mid aad looga xumaado isla markaasna ay baaq u direen dhinacyada ay ka soo jeedaan maleeshiyaadkii falkan geystay in aad arinta wax looga qabto loo soo istaago ummadda deriska carradaas deganay arinta inaan wax ka qabataan baa la rabaa
odayaasha in wax ka qabtaan baa la rabaa arrin ceeb fagoora ah weeye haddii dhibaatan sii socotana meeshaas iyo meel kasii xun bay tegaysaa sababta kuwaas haddii xalad waxaa sameeyeen kuwa kalena wax ka xunoo kalay samayn doonaan waxaan leenahay qoladii shilku ku dhacay xalay fariista waa idin baryaynaa fariista ciddii shilka geysatay oo gabdhaha u geysatay aad iyo aad baan waxaan leenahay inaad odayaashiyow adigu wax miynaa geysan laakiin waa wiilashiinnii waxa wax geystay arrintaa u soo baxa wax ka qabta kuwaan wax ku dhaceenoo jooga waxaan aad iyo aad iyo aad aan uga xunnahay oo aanaan soo dhowaynayn oo reer galinsoor iyo reer gaxandhaale dhexdooda laga suubinayo waxaan soo dhowaynayna maaha waa arrin fool xun raggu waa isogaa laakiin dan la horma gooyo dumarka oo meel magaalaha la geeyo oo dharkii laga dhigahayo la garaacahayo oo haddana ku leeyahay ummad lagu faylinayo haddana la dilayo wax fool xun weeye halkaa waxa ka dhacay waxaanaa soo dhowayna fool xun weeye wax sharciga diinsaamkana ku bannaana maahan haddana ku leeyahay daris meesha hadda la wada joogo wax ku bannaan maahan waxaanu leenahay oo aad iyo aad iyo aad annagu aan leenahay reer galinsoorow midda xala bilaabatay waa raad fool xun awal naga maqnayd weeye waa raad naga maqnayd 15 gabdhood oo la kaxeeyey oo la dhexgeeyey ummad la dhexgeeyey lama lahaan jirin laakiin mujaqaafo xunahoo qof iyo laba iyo waa la arki jira arrintaas xala la bilaabay annagu waxaan doonaynaa ma jecla iyadoo kale inaan ku aar qaadano haddayse dad weydo shaydaan waa jooga waa inay caqli heshaa waa inay odatinimo heshaa waa in haddana ku yahay la isqabtaa waa in hawshaan wax laga qabto dadkii saas sameeyana la qabto annaguna aan celino wixii aan taasoo kale ku kicin waa inaanu ka talinaa waxaan idin leenahay arrintaas waa saa'id halkaa gabdhaha jooga waa gabdhaha gurigiinay joogaan kuwa kale kuwana waa joogaan waxaanu leenahay gabdhaha saa dambe dib dambe ayaan loo noqonin arrinta wax laga qabto hal la joojiyo waa saa'id wixii laisla ogaa waa ka saa'idkaasna haddaan la hor istaaginna way sii soconaysaa marka dambena meel foolxun bay geli doontaa waxaan leenahay odayaashiinna culimadiinna xildhibaanadiinna madaxdiinna saraakiishiinna waxaan doonaynaa arrintaas inaad wax ka qabataan annaga reewga dhaceenna raallina kama ayna sii socoto wixii hadda ku sii kacayana waa ceshinaynaa annagu waa joojinaynaa waan celinaynaa markee waxa weeye meelaan ku sii cayna ma naqaan gabadh walaashayna aadnaa ma habaryar baan aadaynaa maxaan ku aar qaadanaa ma habriya habaryaraha yaa aadnaa eedayaanka yaa aadnaa war waa ceeb waxaas war annagu habaryar aadi mayno oo dad u soo qaybin mayno oo dad jafjafi mayno oo kaalaya ragoo ku heesa waxna qabtana maa nasabadayduna ma ahan waad ku kacdeen laakiin waxaan doonaynaa saad mas-uuliyad ba u leedihiin suldaan ma u leedihiin hawsha dhex ka qabataan baan doonaynaa